Please share it. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ولا ليال meel walbo dunida iyo daafaha caalamka aad ka joogtaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo, ilaahayna ha idin xifdiyo. waa walaalkiin Cutayba Sheekh Axmed. insha allahu tacaala kaliibkan waxaa kaga hadli doonaa hadduu allah raxmaanka qadaro sixirka qofka looga dilo dareemaha galmadana looga xiro. waa sixirka loo yaqaano as-sixru rabdi. waa sixirka ruuxa galmada looga joojiyo dareemahana lagu dilo. calaamooyinka lagu garto sida loo cilaajiyo insha allahu tacaala ayaan ka hadli doonaa hadduu allah raxmaanka qadaro. su'aalo fara badan ay soo weydiiyeen dad fara badan oo walaala ah. sixirka noocaani wuxuu ka mid yahay sixirada dadka lagu ibtileeyey waaqicaan maanta ku nool nahay. shayaadiinta, saaxiriinta iyo xusaada kama zuulaan ilaa inay dadkani muslimiinta ah ay ka dhibaateeyaan jaanib walba. haddii ay noqoto dhankii waxbarashada, haddii ay noqoto dhankii awlaada, haddii ay noqoto dhankii cibaadada, haddii ay noqoto dhankii jinsiga xagga jamaaca iyo gogosha dadkii isqabay, shayaadiintu kama zuulaan ilaa inay dadkani ka dhibaateeyaan jaanib walba. maanta insha allahu tacaala kaliibkani waxaan kaga hadli doonaa sixirka loo yaqaano as-sixru rabdi, kaas oo ruuxa galmada looga joojiyo dareemahana looga dilo sifo oo ninka naagtiisa uusan ugu tagin oo looga xiro ama wax jamaaca uusan la samaynin. sixirka noocaasi waa sixirada ugu caansan ee lagu ibtileeyo dadka maanta xaaliyan dunida ku nool. dad fara badan oo waqti xaadirkaane uu hayaa walwal fara badan, cabsi fara badan, qoysas fara badan ayaa ku dumay sixirka noocaana. guryo fara badan ayaa lagu kala kiciyey, dad fara badan oo isqaba ayaa ku kala tegay inta loo sameeyay sixirka noocaana. waa sixirada ugu qatarsan ee maanta bulshada muslimiinta ah lagu ibtileeyey ayuu ka mid yahay. waa sixru rabdi ayaa la yidhaahdaa. waa sixirka ruuxa looga xiro dareemaha gogosha iyo galmadana looga joojiyo. sixirkani wuxuu leeyahay calaamooyin fara badan. calaamooyinkani haddii aad ku aragto sayigaada ama haddii aad ku aragto xaaskaada wiilyahow, waxaad ogaataa xanuunka gabadhaada hayo inuusan ahayn xanuun iska yeelyeel, xanuun iska caadiya, xanuun khatar ah inuu yahay ogow. xanuunka noocaani waa xanuun aad iyo aad khatar u ah. waa ruuxa in laga xiro gogosha. shayaadiintu waxay isku dayayaan dhan walba inay dadka ka soo galaan, xataa gogoshii xaggii jamaaca jinsiga labadii qofood ee isqabtay gogoshii wixii ka dhaxeeyey ilaa inay ay sameeyaan. walidaalika sidaas awgeed buu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ruuxa markuu xaaskiisa la jameecayo ama la galmoonayo waa inuu akhristaa adkaar iyo duco. waqti xaadirka aan ku nool nahay maanta dad adkaar akhristaa way ay yaryihiin. dad adkaar ay akhristo aad bay u yaryihiin. haddaba marka waxaad ogaataa calaamooyinka noocaani haddii aad ku aragto xaaskaada, gabariyay haddaad ku aragto calaamooyinka noocaana sayigaada, cilaaj u degdega. ilaahayna subxaanahu wa tacaala barya inuu ilaahay idinka dulqaado subxaanahu wa tacaala. sixirka noocaani waxaa lagu gartaa 5 calaamadood. 5tan calaamadood haddii aad ku aragto xaaskaada, waxaad ogaataa xaaskaadu inay sixiran tahay. sixirka hayana uu yahay sixru rabdi, yacni sixirka lagu xiro dadka. hadduu nin yahana gogosha looga xiro, haddii ay dumar tahana gogosha looga xiro. calaamada koowaad uu leeyahay sixirkaani waxaa kow ka ah ruuxa inuu hami dareen fara badan oo shahwo ah oo xaaskiisa oo u qabo. haddii uu nin yahay, markii uu ka maqan yahay, guriga bannaankiisa ku maqan yahay, suuqa markuu ku maqan yahay, dalka dibaddiisa markuu ku maqan yahay, ruuxa inuu dareemo dareen fara badan oo shahwo ah oo xaaskiisa oo u qabo. haddii guriga uu yimaado hal maba ruuxi waxaad dareemaysaa inuu noqonayo shutdown, zero inuu noqonayo. waa qodobka koowaad ee lagu garto weeye sixirka noocaana ee loo yaqaano as-sixru rabdi. haddii aad isku aragto hami fara badan gabar yahay oo dareen fara badan aad ninkaada u qabto, ninkaada guriga markuu soo galana adigana aad dhaqanka noocaana isku aragto oo hal marba dareemihii lagaa dilo, waxaad ogaataa xanuunka ku hayo inuu yahay xanuun sixir ah. waxba dhakhtar ha ku tagin, ha ku daalin dhaqaatiir, waxba yeesan shoog kugu furin, iscilaaji. dad fara badan oo waxaan arkay arrinta noocaana ay shoog ku furtay maskaxdooda, walwal ka walbaharsan. yacni nin haddii xaaskiisa gogosha laga galo waa meesha ugu dhib badan weeye. gabadhuna markii ninkeeda laga gala xagga gogosha waa meesha ugu dhibka badan weeye.
weeye gurigana meesha uu ku taagan yahay waxa weeye waa gogosha gurigaasi hadii gogol laga waayo labadaas qofood inay wada joogaan way adag tahay labadaas qofood inay si niyad ay ku wada joogaan way adag tahay haddaba marka saaxiriintu iyo jimanku kama zuulaan illa inay dadkaani gudaha u galaan waxa gogosha ka jira xataa bal iska daayay gabadhii haday uur qaado ee ilmo caloosha ku qaado waxay isku dayayaan inay soo tuuraan xaasidnimo heer ay ka gaareen ibliis wuxuu wax ku bixiyaa hadiyada ugu qaalisan labada qofood in lagu kala geeyo ibliis wuxuu sameeyaa kursigiisa ayuu wuxuu dhiganayaa badda dhaxdeeda markaasoo shayaadiintii soo diraya subaxii markaasoo waxa iimaanaya galabkii markii la gaaray soo rawaxaan waxa iimaanaya kuwa leh anaga maanta waxa sameeynay laba qofood ayaa kala geynay aniga maanta waxa sameeynay laba walaalo oo isla dhalatay ayaan isku dirnay aniga maanta waxa sameeyay hebel ayaa waxa ku dhahay hebel caay aniga maanta waxa sameeyay heblaaya salaada ma aysan dukanin salaada ayaa ka celiyay mid baa iimaanaya wuxuu leeyahay kama zuulin illa laba isqabta aan kala geeyo ibliis markaas ayuu wuxuu sameeyaa wuxuu xirayaa shaydaankaasi taaj ayuu xirayaa haddaba marka waxaad ogaataa waxa ugu badan ee ibliis iyo shayaadiintu ay wax ku bixiyaan waxa weeye ama ugu dadaal bixiyaan waxa weeye labada qofood si loo kala geey lahaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu nicib yahay guri la dumiyo muslim ah ruuxii ka shaqeeya guri muslim ah oo dhisan in la dumiyo la kala geeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ruuxaasi waxa ku dhacaysa caradiisa ayaa ku dhacaysa maanta waxaad arkaysaa dadkii isqabay ayaa la kala geenaya laba isla dhalatay ayaa la kala geenaya laba yacni isqabto ayaa gogashii lagu kala geenaya laba isla dhalatay ayaa la isku diraya walaalka iyo walaasha adeerka iyo abtiga hooyada iyo aabaha dadkii dhan waa la kala geeyay waxaana lagu kala geeyay sixiro هدي أي نقطة سحر التفريق هدي أي نقطة سحر الجنون هدي أي نقطة سحر المحبة هدي أي نقطة سحر الكراهية دول بس سحر هو جانب بدنيا سحر واحد الروح يعني قبل يسي حاسس كيس لقوك لقيه سحر واحد ردتك اللي قد له سحر واحد ردتك حول على قدره سحر روح واحد العقل كيس لقى قاعد مسك حديثه سحر واحد جرو يعني الروح ونقولنا عاد الواح وكلتها ساحرين تمرك ضد كانوا يكسروا قال دول بس سحر كانوا أنا مركو حكمي جاي سحر ضدك اللي هو ابتلايه وحنا لو يقانا السحر الربدي أي لو يقانا روح إن جوشي لقى حره زوج كيس لقى حره واحد رأيما إنه وصل من حاس كيسه قولي مركو كم غير روح وحدرمية همي فربدن شهوة فربدن كالقعين فربدن حاس كيسه وحدونا يا إنه لا مباشرة أو جميع الصمية أقل كمركو صدق الروح وحدرمية هل مرين لقى ديكو زيرو وقلب ككواد اللي هو قرتوا يسعر كنوع عنا هدي أديسكو أرنت مركا أرنت النوع عنا مركا قولي كم قنت هنا أوكي تاي قولي مركا صدق الشان واحد دم يهين واحد وقاتا واحد حنوصن تاي وحكو هاينا وسعر كنوع عاسة واحد ودك دكتا علاج سيدا ugu dhaqsiya badan leh adigoo maskaxdaada ku fiyus ku furin adigoo aad isku buuqin adigoo aad isla hadin dad far badan waan ogahay niyada ay ka guuxayaan dad far badan waan ogahay gudaha ay ka gubanayaan dad far badan waxa ogahay walwalkooda maanta ma soo bandhiganayaan dhaqaatiirtii ay saf ugu jiraan dhaqaatiirtii ay la taagan yihiin ayagoo ka cawanaya ama ka walwalayo arintan noocaana way soo noqnoqtay dad far badan oo walaalaana su'aalaha iga soo weydiiyeen qodobka koowaad weey hadii aad isku aragto himadaas faraha badan leh markaad gurigaada ka maqan tahay gurigaada markaad soo gashay zero inaad tahay sixirka noocaas ayaa iska leh loo yaqaano as-sihru rabbi calaamada labaad hadii aad dareento marka calaamada labaad hadii aad dareento yani dareen la'aan gabadhii inaysan wax dareema u haynin ninkeeda wax dareena inaysan ninkeeda u haynin ninkuna oo xaaskiisa wax dareema u haynin sida laba qofood oo walaalo ah inay isaga jixraan ninkiina halka u sii jeesto sariirtii gabadhina inay xaq u jeesato dareen la'aan همي ما بلا الروح همي ما لها علامته كواد وحن كوسو شيء روح إنه همي ليه هاي لكن مركو جورجيس عايز كسوي ماله أو يعني دونا إنه مباشر أما الجميع على السمايو هل مرين شطة ولا قديك الروحة أو دريمي اللي قدلو تاوا قضب كواد كلمات روحه همي ما بلا همبا ويحكوا كل الدوين قضب كي هري قضب كاني قضب كور الروح وحوليه همي درين أيو ليه هاي قضب كلمات الروح درين ما بلا همبا وهمي أما درين أو كجر الروح سيابيراتي من جرت وجوان عدلا درينا ما ملهمبا واحد دنا أما الراحة حتى ده ما أنتوا دنا يسكت تجان واحد درينا أما همية أما دنا إلى هاي هوايراتي ما بجرتوا تانو وقضب كلامادوي قضب كالسدحات جبده مركو دونا يونيك كذا إنه لقى الموضوع أما يعني قال ما الله سميه مركي جبده فرج كذا وحكسه دارنا يدعان يعني أوديجا أو يعني دعان كي عادة أنا مهين haddii aad isku aragto marka qodobka saddexaad
dheecaan xilliga yacni galmada ka hor ama markii uu doonaya ninkaada inuu galmo kula sameeyo haddii aad isku aragto dheecaan oo dhiig ah kaas oo aanan ahayn dhiiggii xeedka waxaa lagu gartaa qodobka saddexaad in uu ku hayo sixirka noocaan ee loo yaqaano sixru rabti maxaa yeelay dhiiggaani wuxuu imaanayaa xilliga galmada kaliya markii uu ninkaada baxo guriga ka baxo dhiig ma kaa socdo markii uu doonaya ninkaada inuu galmo kula sameeyo marka ayuu imaanaya xilliga galmada agteeda ayuu imaanaya dhiiggan waa mar walba oo doonaya saygaada inuu ku jameeco ama galmo kula sameeyo xilliga ayuu imaanaya dhiig noocaas qodobka afaraad ee lagu garto ama calaamada afaraad ee lagu garto sixirka noocaana waxa weeye ninka markii uu doonaya xaaskiisa inuu galmo la sameeyo markiiba inay shahwo ka timaado waana waxa loo yaqaano qadfu sariic biyabaxa degdega ah ee ragga ku dhaca dumarkana ku dhaca markiiba ruuxa waxaad arkaysaa shahwadii inay dhaqsi ka imaanayso inuusan xaji karin shahwadii loogu talagalay ruuxa inuu xajiyo maxaa yeelay waxa sababayo jinka jirkiisa ku jiro ayaa sababayo jinkana wuxuu degan yahay maskaxda xididka oo ruuxa dareenka ka qaado waa xidid ku yaalo maskaxda xididka oo ruuxa bini aadamka ah oo dareenka ka qaado waa xidid ku yaalo maskaxda markiiba ruuxa wuxuu sameynayaa jinka loo idmaday sixirkaasi inuu ilaaliyo ilaa labada qofood markii sixir lagu sameynayo waxa la budda sixirkaasi in loo soo dhiibo ama loo soo wakiishado jinkaas ayaa wuxuu degayaa maskaxda marka qaybta dareenka marka wuxuu sameynayaa gabadhii inuu dhiig ku furo ninkii inuu shahwada sida ugu dhaqsiya badan uga timaado ninkii inuu dareemaha ka dilo ninkii markii galmada uu bilaabo sidaas xaaskiisa ugu tago markiiba soo dhaxmaraayo hooshiisa in markiiba laga damiyo waana qodobka afaraad haddii aad isku aragto biyabax degdeg ah oo aadan xaji karin waxa iska leh sixirka noocaan ee loo yaqaano sixru rabbiga ayaa iska leh qodobka shanaad haddii aad isku aragto marka qodobka shanaad haddii aad isku aragto gabar yahay xanuun gumaarka ah hadaad isku aragto oo gudaha xilliga uu ninkaada jameeca ama galmada kula sameynayo haddii gudaha ama gumaarka aad ka dareento farjiga gudihiisa xanuun sida yacni inay meel ku damqato oo kaleeto ama yacni qof bikra ah camal aad dareento oo gudaha xanuun aad ka dareento waxaa lagu gartaa ayadana sixirka noocaana xanuun gudaha sida inuu nabarkaaga yaallo oo aad damqanaysid marka waxaa dhacayso yacni ruuxa hataa inuu xaji waayo zoojkeeda oo iska tuura ruuxa sifa yacni xanuunka haya awgiis ayadana waxaa lagu gartaa qodobka shanaad ee lagu garto weeye sidee marka loo cilaajiyaa calaamooyinka aan kuu soo sheegoo dhan ruuxa hadduu isku arko amaba uu qabo sidee loo cilaajinayaa qodobadaas haddaad isku aragtaan waxaa loo cilaajiyaa qaabkaa soo socda dad fara badan waxaan ogahay arrimaha noocaan aan ka hadlaa inay tahay xasaasi laakiin waxaad ogaataa ilaahay subxaanahu wa tacaala in allaha laa yastaxyi min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo waxaani waa wax dhib ah oo jiro dadkana lagu ibtileeyey dadka intooda badanna way qabaan xanuunka noocaana ilaa man raxima rabbi maana dad yar maahane inta badan way qabaan dad fara badan ayaa su-aale iga soo weydiiyey dad fara badan baa isoo wacay waxyaabaha ayaa igu kalifay marka inaan soo bandhigo cashirka noocaana waa dadkaan u sheego calaamooyinka lagu garto iyo ruuxa maxaa la gudboon haddii waxaan ay asiibeen maxaa la gudboon haddii waxaan asiibeen marka sidee loo cilaajinayaa ruuxa sidee loo cilaajinayaa awalan ruuxa waxaa la saarayaa qur-aankaas aayadaha goosgooska ayaa la saaraya aayadaha cilaajka ee ruqya sharciya loo yaqaano waxaa lagu akhrinayaa ruuxa aayadahan soo socda qaala muusa maa ji'tum bihi sixru إن الله سيبدله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله إن الله سيبدله إن الله سيبدله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أفسحر هذا ولا يفلح الساحرون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله قال موسى
موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى آياتها بالغو أخنيا مدشنية طوال عشاء آياتها بالغو أخنيا آياتها سحرك آياتها بالغو أخنيا ما دام الروح قبو سحر الربدي آياتها سحرك آياتها بالغو أخنيا آياتها أكوسة المامي والوعي العلنية ولي بعد صري هذه ميكروفون هيك كان وابكسي غير بدن طابة شنية طوال عشاء مركي سيدا لغو وضو أو لغو أخريو روحها هدي أسبدل لغوايو وحال سوق هذا تبدر أما بوك بالسوق هذا آياتها بالغو أخنيا آياتها وحي كجتا سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا آياتها بالغو أخرنا بقول جير يوحي كبدا لaba boqol iyo konton ruuxa wuxuu awoodo tuuba inta la soo qaadaya dhagaha lagu aqrinaya ayadana waxa lagu wadayaa muddo 15 cisho kale taa sida markii lagu wado 30 ka cisho 15 cisho cilaadkii aan ku soo sheegay 15 cisho cilaadka ayada aan ku soo sheegay ruuxana tahliil baa loo tufayaa tahliisha buu ku qubaysanayaa wuuna cabayaa habeen iyo maalin tahliisha ayuu isku shubayaa wuuna cabayaa انت مركي لسميو روح عديو يقانو سورة البقرة وحافي عن او ادياد ونكسن انو مالين والبا اساقان او اغريو سورة البقرة من بداية الى النهاية انو بالله سورة البقرة راتب مالين والبا انو كتاب القرآن كسوقاتو سورة البقرة او اغريو مر والبا وحاكلتو وناكسن روحا إنو كددالو أذكارت الصبحي أذكارت قلبك الآخريو انت أمركو الروح السميو إن شاء الله تعالى إلهي وحكر جينينا إنو كو عافيو سيدي أن هرو قبرني ضد فربضني أن طلبه سيني كدمنا إلهي كو عافيي إلهي وحنوي ديسينينا سبحانه وتعالى عز وجل إنو عافي ما دق دق السيو ضدك إسقابا يكو آن إسقابين كو لدي بن حنونة النوعانا سحرك كو لدي بن حسدك كو لدي بن إشا بالآدنك انت بإلهي وحنوي بريا سبحانه وتعالى إنه سي عافمات دقدقة وديك يدو حقله إلهينا سبحانه وتعالى هيدن كعافيو مردو إن شاء الله تعالى وات كعافي ماذا يسا هو الولين عبسانين شياطين تيسن عاجز كقردين إلهي سبحانه وتعالى هدي يجروح واللجرة أدون كيسا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إلهي هدي يجروح وقرقار كوي رميي مسلمين تا قالوا نعدوا قرقارتها مهليان إلهينا سبحانه وتعالى قرآن كداوا يدكو قدروا أدبانيدين جعل هاي ولكن عتيبة شيخ أحمد مقال كان إن شاء الله تعالى لو ذاك ولا الله كليته سيفي وقفا إيديستان وقون انتفاعان اسكوون الداويان دادك اللي بن حنون كنوعانا أدباني دي سلامية والسلام عليكم